الله تعالى وبركاته كلنتي وعنو ونكسن أخيارتا هوذا نقدا ونيساي إذ لهان تيمبا كسور دوادا وروحانو إذين كايني دافع عالمكا يردولالكا صوماليدا warkuna waxa uu idin ka imanaya stuudiyaha oo telefishanku ku leeyahay magaalada Hargeysa intuu warku socdana waxa idin socodsiin doona anigoo ah Ciidruus Cabdilaahi Ismaaciil Beershiya qodobada aad ku daawan doontaan waxa kamid noqon doona madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo oo si rasmi ah xariga uga jaray maktabada ugu weyn Soomaaliland oo dhismaheeda laga hirgeliyay magaalada Hargeysa ee caasimadda waa Soomaaliland madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo dib ugu laabtay magaalada Garowe kadib socdaal uu ku tagay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya xarunta xuquuqul insaanka madaxa bannaan ee Soomaaliland oo soo bandhigay tacadiyadii kulliidka ahaa xuquuqda aadamaha ee sanadani dhamaanaysa 2017 ka dhacay gudaha Soomaaliland ra'iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya oo ka qayb galay xuska maalinta qoomiyadaha Itoobiya oo lagu qabtay magaalada Samara Israa'iil oo duqeysay goobo ay sheegeen inay ku sugnaayeen kooxo ka tirsanaa ururka Xamaas ee ka dagaalama Gaza maanta ay ku beegan tahay maalinta musuqmaasuqa adduunka ayaa waxa uu TV-gani Somali Cable u warbixin idinka diyaariyay musuqmaasuqa iyo saameynta uu ku keenay Soomaaliya intaasi waa qodobada wararkayaga ugu doorka roon balse imikii haatan ku soo dhawaada qadar adeega bulshada adeega deeqtoon ee Salaam Somali Bank waa deeq ee banasiyay durdur aan go'ayn waa xareeda adayo dad iyo dunya cabaan waa adoo durka maraya gaariga ka damayo cilada leedana jooga waa deeqtoon ku adeega dollarka ku yaala Salaam EFC uga doono dabada shidaalka ku iibso adeega deeqtoon waa adoo xaj u duulay deegaan xaram jooga sahaydaada wixii u dambeeyay adoon $1 ka haysan adeega deeqtoon Salaam Somali Bank uga doono Salaam Somali Bank waxay ku keentay adeega deeqtoon iyo adeegyo kale oo aad u badan oo shirkadda laga helayo deeqtoon waa adiga oo jooga meel walba oo dunida ka mid ah ku adeego ku dirbiilasha iyo mushaarka shaqaalaha aniga iyo asxaabtaydu maanta waxaan la ciyaarinaa koox aad u adag si wanaagsan bay u soo diyaar garoobay waxaan ka baqanaynaa inay naga badiyaan علي هوي معن حق قدعي وين دارناي سلام داشا هوي هوروري هو عانها العب وحكي لي ساعه مره والله علي سيف عم بعياري علي محاسي سوا محسر تام وميلا دقين وحسي عانها لي انا هلس وعنا نوعيه هروما مقله وعانا نفقيه سيبله ويلو كعسو بيه سوقا aan kugu sii daray anaha waxa lagu sameeyaa dhulkeena hooyo caanaha lis waa wada dhay waa wada nafaqo waa wada tayo waa wada tamar waana wada caafimaad haddaba ha ka daahin ee hore u doona caanaha lis هلا مدنيال يا مروين waxaa socda ololaha qiimo jabinta sanadka cusub ee Nilis Furniture oo soo group in ka badan 30 shay oo qiimahooda la soo jabiyay ayaa kugu diyaar ah alaabta caruurta waxaa la jabiyay qiimo jabin dhan ilaa iyo 70% bal aan eegno ololaha fadhiga Lavera waa 995 pound oo kaliya miiska qadada 299 oo kaliya miiska qadada ee kala baxa waa 69 pound oo kaliya Dara TV-ga miiskiisa waa 2 pound oo kaliya yes 2 pound oo kaliya haddii aad doonayso inaad wax badan ka ogaato ololaha socda soo booqo bartayda Facebook kadibna riix meesha ay ku qoran tahay December campaign 48 bilood interestigu waa free alaabtadana si bilaash ah ayaa gurigaaga lagu keenaya Nilis Furniture Design also group ka soo gaara waa 273 Forest Street Edmonton London N9 OBD ra'iisul wasaare ku-xigeenka dawladda Soomaaliya ayaa ka qayb galay xuska maalinta qoomiyadaha Itoobiya
oo lagu qabtay magaalada Samaara ee dalka Itoobiya sidoo faahfaahinta warkaasi inoogu soo diray wariyahayaga Cabdulqaadir Cumar Cabdulle mudane Mahdi Maxamed Guuleed Qadar oo ah ra'iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda Soomaaliya ayaa ka qayb galay maalinta munaasabadda qowmiyadaha Itoobiya isagoo matalayay dawladda federaalka ah ee Soomaaliya munaasabadan oo lagu qabtay magaalada Samaara ee gobolka Cafarta ayaa waxaa ka soo qayb galay ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Haile Mariam Desalegn madaxweynaha waddanka Suudaan Umar Hassan al-Bashir madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti Ismaaciil Umar Geelle iyo madax kale oo qaaradda Afrika ka kala socotay ra'iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya mudane Mahdi oo horay uga soo baxay jaamacad ku taala dalka Itoobiya ayaa ugu horeyntii khudbadiisa ku furay afka Amxaariga oo ku salaamay madaxdii iyo dadweynihii ka soo qayb galay munaasabadda የተከበሩ የፓርላማ አባላት የተከበራችሁ የሚኒስትሮች ምክር ቤት አባላት እንዲሁም ክልል ፕሬዝዳንቶች የተከበራችሁ እንግዶች እንኳን ለኢትዮጵያ ብሔረሰቦች በዓል በሰላም አደረሳችሁ። Your Excellency, the Prime Minister of Ethiopia, Ato Haile Mariam Desalegn, the President of the Sudan, His Excellency Umar Hassan al-Bashir, the President of the Republic of Djibouti, His Excellency Ismail Umar Geelle, Excellencies, distinguished guests, honorable friends, ladies and gentlemen, on behalf of the federal government of Somalia, let me say sidoo kale ra'iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya ayaa salaan uu kaga siday madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Farmaajo u diray dhammaan madaxda iyo shacabka qowmiyadaha Itoobiya by extending warm greetings from the people of Somalia and in particular the President of the Republic of Somalia, His Excellency Muhammad Abdullahi Muhammad Farmaajo. Cabdulqaadir Cumar Cabdulle Fiidka magaalada caasimadda ee Muqdisho Somali Cable TV madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo ayaa si rasmi ah xariga uga jaray dhismaha loo yagleelay maktabadda ugu weyn Soomaaliland oo laga hirgeliyay magaalada Hargeysa madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo ayaa waxa uu si rasmi ah maanta xariga uga jaray librariga qaranka Soomaaliland oo isaga loogu magac daray kaas oo dhawaan dhismihiisa la dhameystiray waxaana ku wehelinayay mas'uuliyiin ka tirsan xukuumaddiisa iyadoona munaasabadaasi ay ka qayb galeen mas'uuliyiin ka socday hoggaanka asxaabta siyaasadda Soomaaliland wasiirka waxbarashada wasiirka maaliyadda iyo xubno kale oo ka tirsan xukuumadda Soomaaliland isagoona goobjoog uu ka ahaa madashaasi madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo ugu horreynna waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha librarigani waxaanu faahfaahiyey marxaladaha iyo heerarka kala duwan ee uu soo maray librarigani loogu magac daray madaxweyne Silaanyo madaxweynihii qaranka oo markii hore dhagaxay la dhigay dhismaha dhulka ku yaalana bixiyey madaxweynuhu inuu maantana mar labaad Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo madaxweynaha qaaliga ah in uu xarigii nooga jaro waa sharaf weyn oo runtii dhammaanteed inaynu hambalyeeyno uu mudan yahay madaxweyne waxaanu ilaahay kaaga baryaynaa caafimaad iyo cimri dheer waxaan idhaahdaa 250 sannadood uu madaxweynuhu ummadda u adeegay haddii sheegayno taariikhda qof walba haddaynaan qiimeyn wuxuu qabto ilaada baydno khaladaad iyo laynaga waayi maayo laakiin haddaynaan wanaaggeena hadii sheer qirin oo aynaan isku ambaliyey waxqabadka iyo inuu hadii sheer ku dhiiradaan oo yaraanaysa waxaan sidaa hadalkii Salma ayaa intii badan runtii sheegtay geestooda xubno ka tirsan wasiiradii ka qayb galay madashani oo halkaasi hadalka iska daba qaatay waxay bogaadiyeen mas'uuliyiintii doorka weyn ka qaatay sidii uu dhismahani u hirgeli lahaa runtii waxa weeyaan madaxweynuhu isagaa loo hawleeyay inuu library-gaas u dhismo markaa lagu nimeeyay u sheegnay oo dhulkan waxaa lahayd wasaaradda boosaha iyo isgaarsiinta waxay yidhaahdeen ma bixinayno dhulka waayo anagu waxaan u baahanahay inaanu balaarsano
dabeedna waxay naga qaadatay muddo dheer madaxweynaha markaa dhulka waa bixinaysaan waxaana ugu badan ugu sameeyey markiiba in dhismihii gaboobay ku jireen mar haddii library cusub laga dhisayo in iyagana loo dhiso run ahaantii mudan madaxweyne waa arrin taariikhi arrintani axmed aad iyo aad buu ugu mahadsan yahay duu muddo 7 sanadooda 2009 waa 9 sano weeyaan ay ku dhowdahay uu daba socday ubadkiisii iyo weligiisii iyo danihiisiiba uga yimiday maanta wuxuu ku gaamayaa in fishankiisii iyo ujeeddadii uu lahaa ay rumoobeen natiijadii waynu aragnay aad baa loo baxay laakiin wuu yaryahay wax reer somaliland oo ka keenay faa'iido waxaanba wax ku soo bartay amba magaranaysaa ee mashaariic keenay haddana waxaanu dowladda cusub aanu ku boorinaynaa ee qolmajooga aanay ku xiriirin dhalinyarta ka soo baxay jaamacada dalka ugu dambeyntii waxaa madashaasi soo guulaysaday madaxweyne axmed maxamed maxamuud silaayo waxaanu uga mahad celiyey mas-uuliyiinta laybareerigani sida ay ugu maamuuseen guud ahaanba qaranka jamhuuriyadda somaliland gaar ahaan faaya iyo jiilka dambe jecel akhriska qoraalka iyo daalacashada cilmiga higsigii iyo himilooyinka xukuumaddeedu ahayd ayay ka mid ahayd in la suurtageliyo xaaladaha kaydka kutubta qaranka national library heer qaran heer gobol iyo heer degmo alxamdulilahi rabbi alcaalamiin maanta waxaa si rasmiya inagu suurto gashay inaan xarig ka jirno xaaladda ugu horreysay ee kaydka kutubta qaranka taasoo laga hirgeliyey caasimada dalka ee hargeysa waa idruus cabdilaahi ismaaciil beershiya telefishinka caalamiga ee Somali Cable Hargeysa xarunta xuquuqul insaanka madaxa bannaan ee Somaliland ayaa soo bandhigay tacadiyadii kulidka xuquuqda aadamaha ee Somaliland ka dhacay sanadani dhamaanaysa 2017 sidoo faahfaahinta warkaasi magaalada Hargeysa inuu ugu diyaariyay wariyahayaga Faysal Maxamed Aadan Fifa wadamada kala duwan ee dunida horumartay waxay inta badan si gaaraaneed u tixgeliyaan ka fogaanshaha tacadiye ka dhana xuquuqda aadamaha balse ma noqoto sidii la rabay mid uga dhaqan gasho wadamada qaarkood Somaliland walow ictiraaf buuxa beesha caalamka wali ka helin oo shacbigeedu yihiin kuwa wali u jeeni qaaran helidda ictiraafkaasi balse waxa lagu tiriyay wadamada inta badan ay ka dhacaan tacadiyada ka dhanka xuquuqda aadamaha xarunta xuquuqul insaanka madaxa bannaan ee Somaliland waxay sanad kasta dabiiqadiisa soo bandhigaan tacadiyadii ugu dambeeyay ururiyaan intii lagu guda jiray hadba sanadkaasi halkani waa kulan gaar ah oo reebana soo bandhigida tacadiyadii ugu dambeeyay Somaliland gudaheeda ka dhacay intii lagu guda jiray sanadka xilligan si gabaabsiga 2017 waxaana goobjoog ku haysa markaana si weyn u dhuganay dhawaaqa erayada kala duwan ee mas'uuliyiinta xarunta xuquuqul insaanka madaxa bannaan ee Somaliland mas'uuliyiin iyo sidoo kale saraakiil kala duwan oo matalay hay'adaha caalamiga kuwa maxalliya ururada arrimaha bulshada u dhaqdhaqaaqa suxufiyiin iyo sidoo kale siyaasiyiin kala matalaya asxaabta siyaasadda Somaliland waxaana halka ka akhriyay warbixin dheer oo ku qotanta tacadiyadii Somaliland gudaheeda ka dhacay intii lagu guda jiray sanadkan gabaabsiga 2017 gudoomiyaha xarunta xuquuqul insaanka madaxa bannaan ee Somaliland Guleed Axmed Jaamac Guleed Dafaac waxaana warbixintiisa ku soo qaatay suxufiyiin iyo sidoo kale ila warbaahineed oo ilaa hadda xidhan xaaladda xabsiyada iyo sidoo kale habdhaqanka booliiska warbixinta sanadkan koobsanayso markaa waxa ka mid ah kaga hadalay dhibaatooyinka la diiwaan geliyay ee dhinaca booliiska ka yimaada oo aan wax weyn iska bedelin sidoo ahaan jiray sanadihii hore markay noqoto inaan booliis wax ixtiraam oo badan ugu haynin dastuurka iyo qodobada ku qoran xeerka habka ciqaabta guud markay dadka xirayaan oo dadka loo xiro sifa aan sharci ahayn loola dhaqmo si aan sharciga iyo sharaftooda waafaqsanayn iyo goobaha dadka lagu xiro ah ku saldhigyada booliiska aan ahayn kuwa ku habboon in dad binaadan lagu hayo xaaladooda aad u xun tahay taana waxa qayb laxaad ka mid inaanu jirin xeer hagaya booliiska lagu la xisaabtami karo anaga aad iyo aad ugu faraxsan in dhowr maalmood ka hor booliisku ansixiyay xeerka booliiska
oo haddii uu dhaqan galo rajaynaya in la dhaqan geliyo wax weyn ka bedeli doono qaab dhaqanka uu booliisku dhaqmaan aad iyo aad uga mahad celinaya midaas golaha wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland rajaynaya in xukuumadda cusub ay iman doontaa inay ka duusho sidii xeerka loo dhaqan gelin lahaa dhibaatooyinka booliiska wax looga qaban lahaa arrimaha kale warbixinta ku jira waxaa ka mid ah tii caadada ahayd oo Soomaaliland maaragtay ku ah arrin aad u xun oo ah in xariga suxufiyiinta iyo dadka dawladda dhaliila ay sii badanayeen 27 suxufi baa sanadkan la xiray oo qaarkood hadda xabsiga ku jiraan oo kamid yahay wariye ku xiran Gabiley oo kamid yahay Maxamed Aadan Direer 18 bilood xariga ku wajahaya xabsiga Mandheera iyadoo dacwadiisa aan loo qaadin sifa sharci ah ama ahayd aad uga fog sharciga Soomaaliland waxaa jira website la xiray oo kamid yahay Harwanaag News dhamaantoodna sifooyinka loo maray aan ahayn kuwa sharci ah iyo dacwad lagu soo oogay sida ogtiina waxaa jira website caana ama wargeysi caana hore waxa yiraahdo kamid yahay Haatuf hubsad codka shacabka oo dhamaantood qaabkii loo xiray ahayd sharci darro Haatuf oo kale ilaa 2014 buu xiray hantidiisa baa laga haystaa sifa sharciina looma marin dacwooyin badan uu sameeyay isku day inuu sameeyana lagama dhigaysan waxa sidoo kale warbixintiisa ku soo daray Guleed Axmed Jaamac Guleed Dafaac gudoomiyaha xarunta xuquuqul insaanka madaxa bannaan ee Soomaaliland cadaadis la saaray dadka xuquuqul insaanka u dooda oo qaarkood xabsiyada loo taxaabay intii lagu guda jiray sanadkan tacadiga ka dhanka haweenka iyo dadka la haybsooco dhibaatooyinka kale warbixintan sheegaysa waxaa ka mid ah xariga siyaasiyiinta oo tibaba 8 siyaasiyiintan anagu diiwaan gelinay laga xiray xisbiga mucaaradka ee wadani oo ka mid yahay 2 suxufi 2 siyaasiyaan iraahdo maxamed sidiiq rame iyo Yunus Axmed Yunus oo dacwad lagu soo oogay Yunusna lagu xukumay 1 sano oo xariga maalintii doorashada iyo kadib ba waxa dad la xiray oo siyaasiyiin ah oo xisbiga mucaaradka disan taasina waxay tacadi ku tahay fursad ay u leeyihiin xisbiyada siyaasadda ah inay aragtidooda cabirtaan oo ay si aan cabsi lahayn hawlahooda uga qayb qaataan kulka caburanaha sanadkan doorashada ugu jira dhacay ayay kamid ahayd in diiwaan gelinay dhibaatooyinka kale diiwaan gelinay waxa kamid ah tacadiga haweenka loo geysto oo aan wax isbedel ku iman jiritaankiisa nasiib darradu se tahay inaanay jirin xeerar dumarka laga ilaalinayo tacadiyada oo xeerkii Maxamed Siyaad Bare ka horeeyay 62 la ansixiyay xeerka ciqaabta guud kaliya uu yahay xeerarka tacadiyada ka dhana haweenka lagu dhaqo marka kufsiga hadii yahay FGM ka hadii yahay garaacista haday tahay iyo dhibaatooyinka kale faraha badan ay ku yimaada haweenka xeerar ilaaliya ma jiro cadaaladda hideedana ma helaan faqriga oo jira ha ahaato hay'adaha dawladda oo dalka wada gaarsiisnaa ha ahaato hay'adaha dawladda oo aan u jilicsanayn inay ilaaliyaan haweenkana ha ahaato dhibaato fara badan baa jirta dhibaatooyinka kale jira waxa kamid ah dadka la haybsooco oo tacaddi fara badan loo geysto bulshaduna u geysato hay'adaha dawladuna aanay waxba ka qabanin dhibaatadooduna ay tahay runtii mid baahsan aan lagana hadal la iskana indha tiro inta badan ama la dafiro laakiin tacaddi weyn uu haysto Soomaaliland oo dhan oo dawladuna aanay waxba ka qaban siyaasadana aanay u sameeynin adeegyo bulsho aanay ka jirin goobaha ay joogaan faqriguna uu ku badan yahay oo aragnay inay tahay tacaddi ka dhana xuquuqisaanaha inta badan la iska indha tiro sidoo kale dadka xuquuqisaanka u dooda laftigooda dhibaato badan baa loo geystay sanadkan sidii caadada ahayd anaga xafiiskayga laftigiisa dawladdu xafiis sarkaal ka tirsan baa la xiray cisho xidhnaa marka intimidation kama cabsi gelinta dadka xuquuqisaanka u doodaana way badnay sidaas oo ay tahay haddana waxaanu rajaynaynaa maadaama xukuumad cusub ay dhalatay oo dalka isbedel weyn ku yimi in arrimaha xuquuqisaanka inay isbedel ku yimaado sidaas daraaddeed talooyin fara badan baan xukuumadda u soo jeedinay talooyinkana waxa ugu muhiimsan in dawladdan indho cusub iyo isbedel la timaado oo ka kanaantii iyo isindhatirkii dawladda hore ku shaqeynaysa aanay tani ku shaqeynin ay la timaado inay dadka u dhiibsanaato oo ogaato cidda dooratay inay tahay dadka shacabka ah ee masaakiinta ah gaajoonaya suuqa maraya oo dabeedna dadka xaqooda iyo sharaftooda iyo karaamadooda la ilaaliyo ilaalinta xuquuqal aadamuhu waa mid si weyn shacbigu hamuun ugu qabaan helideeda balse ma noqoto mid sidii la rabay u dhaqan gasha oo Faysal Maxamed Aadan Faysal FIFA TV-ga caalamiga Somali Cable magaalada Hargeysa maanta waxay ku beegan tahay maalinta musuqmaasuqa adduunka warbixin ku saabsan saameynta uu Soomaaliya ku keenay musuqmaasuqu waxa inoo diyaariyay wariyahayaga Axmed Cabdi Cali musuqmaasuqu waa arrin muuqata oo ka jirta dunida taasoo dhibaato ba'an u geysata dadka saboolka ah curyaamisa kobaca dhaqaale ee ka dhaxeeya dadka musuqmaasuqu wuxuu duudsiiyaa adeegyada aasaasiga ah ee lagu qaban lahaa lacagta sida daran loogu baahan yahay bilow ilaa dhammaad malaayiin ayuu mugdiga musuqmaasuqu saameeyay musuqmaasuqa Soomaaliya ka jira ayaa hadda waxa uu gaaray heer aad u sareeya waxaana warbixinada hay'adaha caalamiga ay sanad walba soo saaraan lagu sheegaa in Soomaaliya ay meel sare ka gaartay dadka Soomaaliyeed ayaa aaminsan in dadka howlaha markii loo qabanayo lagu qasbo bixinta lacago laaluush ah taasoo ka dhigan in musuqmaasuqa uu gaaray heer aad u sareeya musuqmaasuqa Soomaaliya ka jira ayaa lagu tilmaamaa inuu yahay mid aad u baahay oo lagu micneeyo jeebkaaga oo gacanta geliso ay hawshaada ka xigto in lagu fuliyo
sagaalka Diseembar maanta oo kale sanad walba waxaa guud ahaan Soomaaliya iyo caalamka laga xusaa maalinta caalamiga ah ee la dagaalanka musuqmaasuqa si hayaa xilka agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda Soomaaliya Shire Axmed Jimcaale ayaa ka hadlay ahmiyadda maanta oo kale ay leedahay maanta waa soo dhaweynaa waxaan u soo dhaweynaa maalin lala dagaalamayo shay xun waay oo corruption ah oo waxyaabaha qaabdarrada ah ee dunida dhibaatada ku haya ama laga yaabo in dhibaato yihiin laga hortagayo waay yani waa cudur la baabi'inayo waay maanta oo kale waa soo dhaweynaynaa anagana mas'uuliyad ahaan wasaaradda maaliyadda ka agaasimo guud ahaan waxaan leeyahay in corruption kala dagaalamo shay fiican maaha wuxuu baabi'iyaa corruptionku sumcadda waddanka waa baabi'iyaa dhaqaalaha waddanka waa baabi'iyaa kalsoonida bulshada ugu muhiimsan waa baabi'iyaa maanta haddaadan ku kalsoonayn dalkaaga iyo maamulkiisa iyo wixiisa kii cashuur bixin lahaa ma bixinayo kii wax ka sugaya ka sugi maayo qof kasta ma aaminayo hadduusan waddanku uusan deganayn sistamkiisa maamuleed ee hantiyeed ama siyaasadeed ama amni ama garsoor shayaasha ugu muhiimsan ee la rabo corruptionka inay ilaasho waa kuwaas xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa ayaa sharaxaya meelaha uu sida aadka ugu saameeyay Soomaaliya musuqmaasuqa siyaasadii musuqmaasuqa waa ka buuxaa oo cadaalad daradii dhashay wuxuu ka buuxaa musuqmaasuqa arrimihii dhaqaalaha oo cadaalad daradii dhashay wuxuu ku jiraa amnigii oo maaragtay isagana cadaalad darada dhashay musuqmaasuqaasi bulshadii oo kaba sii daran oo iyada ay noqotay maaragtay mid iska sii dhaxasha jiilka jiil oo iyadana cadaalad daradii dhashay intaasoo dhan dhaqankii baa xataa cadaalad daradii iyo ummaddii jiritaankeedii iyo taariikhdeedii iyo nolosheedii deegaameed ayaa xataa waxay dhex gashay oo cadaalad daradii oo iyada musuqmaasuqa sii maaragtay ee sii dhashay meel ay maanta ay dhaaftay ma jirto camad kullaha yani maaragtay hadii maaragtay su'il cadaala maaragtay dhammaan maaragtay nolosha bulshada oo dhan Cabdi Barre Yuusuf Jibriil oo ka mid ahaa xildhibaanadii hore ee baarlamaankii sagaalaad ayaa sheegay in dawladdan ay wax badan la dagaalantay musuqmaasuqa caalamka Soomaaliya wuxuu maanta ka aaminsan yahay meesha ugu hooseysa oo musuqmaasuq caalam ka joogo inay Soomaaliya ka joogto hasaatee waxaad moodaa baryahan musuqmaasuqii Soomaaliya ragadeeyay inuu kor u soo kacayo oo xoogaa ka soo reysanayo oo runtii xukuumaddan garwadeenka uu ka yahay ra'iisul wasaare Khayre iyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo runtii waxaad moodaa inay si toos ah oo muuqda ay ula dagaalameen wixii kale oo qarsoon Ilaahay baa yaqaan laakiin musuqmaasuqii faraha badnaa oo Soomaaliya ragadeeyay oo aan gabashada lahayn runtii aad iyo aad buu waxaan oran karaa aad buu hoos ugu dhacay buu yaraado xildhibaan Cabdi Fataax Qaasim oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ayaa dawladda federaalka ee Soomaaliya ugu baaqay inay xoojiso dadaalada ay kaga hortagayso arrimaha musuqmaasuqa wax kasto dhib kasto jira caalamka ka jira waxa asal u ah ama la daga ummad waliba waa corruptionka waxa kaliya looga hortagayna waxay tahay waxa ay yiraahdaan Talyaani la jecel wala bartuute ama wax la yiraahdo above all muxuu sharciga dadka dhan uu ka sareeyaa حتى مدحوينه وإنه كسر شرع جاسان وحويان أساسه إن لغور تقول الله منا وعيقلين إن دتك الله سبيه والله برو لبعض هذا ولاي هاي موسيقى مركا أنت أسان وحويان اسمه كرا أرنتكو سابسن corruption كا وحنا الله هاي دولة الصومالية دال بدنا حكومة حسو إنه هجاجسو حالة هذا وتأكنا إسلام مركا أصلا إسكو دايدو إنه داويسو تلاوين كهدر تنا إقادة سنة وتلاوين تأذى عنو فرحسنا وحي كخلدنا إلا صحة بالشدة إنه إساق كاشدات سي هرمر وذا جرى لو جارو inay isaga kaashadaan sidii kaga hortagi lahaayeen corruptionka Soomaaliya ayaa sanadkii hore ka mid noqotay 10 dawladood ee ugu musuqmaasuqa badan dunida sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay hay'adda ka shaqeysa ka hortagga musuqmaasuqa Axmed Cabdi Cali Somali Cable TV magaalada Muqdisho tababar ku saabsan xanuunada jadeecada iyo gowracatada ayaa laga daafuray MCH-ka magaalada Ceelbuux sidoo faahfaahinta warkaasi inoogu soo diray wariyahayaga أحمد عاشور مدوينكي قدام بيجي أيها ديجامة قبل كان السناجة مقالوين كم إذا وحاك شري حندا هالسته كود عهوية يدلانكا أو كم تاي كذا عدا جورة عتدا كحدرتا يولي بعود الركلاء
labadii maalmood ee ugu dambeeyey ayaa laga soo sheegayaa magaalada Shimbiraale iyo magaalada Dawaco in ay dhowr carruur u dhinteen xanuunka jadeecada iyo weliba kuwa kale oo markaas u dhintay xanuunka gowracatada waxaana gurmad caafimaad u fidiyey cusbatalka guud ee degmada Badhan ee gobolka Sanaag iyadoo maalintii shalay ahaydna kulan degdega lagu qabtay MCH-ka hooyada iyo dhallaanka ee degmada Ceelbe ee gobolka Sanaag oo lagaga hadlayay sidii markaasi loo xakameyn lahaa cudurrada halista ah ee ku dhaca hooyada iyo dhallaanka iyo weliba sidii qaaraan loogu ururin lahaa MCH-ka hooyada iyo dhallaanka ee degmada Ceelbe oo markaasi loogu soo kordhin lahaa guryo kale oo markaasi ay ku umulaan loogu shaqeeyo umulisada iyo weliba caafimaadka hooyada iyo dhallaanka ee degmada Ceelbe MCH-ka hooyada iyo dhallaanka ee magaalada Ceelbe ayaa wuxuu ka kooban yahay 3 maqsin oo kaliya oo markaasi uusan kaafiyi karin baahida caafimaad ee hooyada iyo dhallaanka ee degmada Ceelbe iyo weliba tuulooyinka hoos yimaad ugu horeysna kulankaasi waxaa daafuray maamulaha MCH-ka hooyada iyo dhallaanka Cabdicasiis Maxamuud Cabdisalaam iyo ku-xigeenkiisa Cabdilaahi Cabdi Ciise iyo weliba mid ka mid ah neeraska ka howlgala MCH-ka hooyada iyo dhallaanka ee magaalada Ceelbe cid kale male dadweynaha ayaa iskale khaas ahaan wuxuu especially uu si gaara wax ugu qabtaa oo ugu shaqeeyaa hooyada iyo dhallaanka MCH-ku shaqooyinka badan ee uu qabto qof walba waa fahmi karaa baahiyaha hadda taagan markaan farta ku fiiqo waxyaabaha daruuriyaadka ee loo baahan yahay oo la rabo muxuu ahaa in MCH-ka loo qabto oo bulshada reer Ceelbe ay si fiican u fahanto waxa kamid ah in ay dareemaan baahida caafimaadka meesha yani la taaban karo waxa weeyaan dhismuhu waa yar yahay waad arkaysaan xitaa qolkii muxuu ahaa hooyada haddii la keeno waqti dambe ama saacad dambe la islahaa muxuu halka ha lagu umuliyo oo ha lagaga shaqeeyo oo muxuu gabdhaha neeraska ah ee qualified ka kaga shaqeeyeen ma haysanaba barnaamijku wuxuu ka howlgalaa MCH-ka saacad kasta iyo waqti kastana isagoo wax joogta oo laga heli karo MCH-ka wuxuu ka howlgalaa MCH-ka waa nafaqada heerka dhexe oo loo yaqaano moderate malnutrition waxa ka shaqeeya isaga team MCH-ka ku xiran oo ka soo shaqeeya tuulooyinka iyo goobo fara badan laakiinse wuxuu ku soo degaa laga qaybiyo MCH-ka inagaan iska saari karnaa macnaha waxaan leenahay anagu waa nala wakiin keenay idinkaanu idin nimi laakiin waxaan rabnaa in wax nala qabto oo wax nala dhiso meeshaan ku shaqayn lahayn inaad dhisataa reer Ceelbe ma aha in anaga nala keenay anagu ma nihin mushaar dad qaadanaya iyo dad biil ku doonaya only waxaan nahay dad gobolka u dhashay una intaasi kadib bulshadii ka soo qayb gashay kulankan qaaran ururinta iyo weliba sidii looga hortagi lahaa cudurrada ku dhaca hooyada iyo dhallaankuna markaasi looga tallaali lahaa cudurrada tan halista ee haatan ka jira gobolka in markaasi laga hortago ayaa waxaa qaaraan ka sheegay kana ururiyey bulshada waxaan filayaa iyada anigu cid aan wax ka weydiinayaa ma jirto saakadana anigu islaantaydu xaamilaha gaari saaray 5 subaxnimo haddaan ku ogahay halka ma direen waxay ka heli lahayd adeegii ay u baahnayd marka ilaahay mahadi weeye hadday qoladani hadda soo abaabuleen dadweynaha MCH-ka maamulayaashiisu ha sheegeen meeshii lacagta lagu shubi lahaa kow oo hadda la bilaabo nin waliba karaankiisa uu bilaabo hadal badan ahaan ma buuxsho hadda anigu $20 baa iga koowa hadda hadal ma hadhin waxaa moodaa in hadalkii laga sheekeeyey wixii MCH-ku ka dhinaa iyo wixii jira iyo wixii taariikhdiisii intiiba laga sheekeeyey laakiin waxa taagan waxtarka haddeer laga rabo reer Ceelbe oo ah maqsinka waxaan ku deeqayaa anigu $50 insha Allah biidnillaahi kariim salaamu calaykum sababtoo dadka u nugul waa anaga hooyada iyo dhallaanka dadka u nugul caafimaad darrada iyo waxqabad la'aanta dadka u nugul waa anaga sidaa darteed annaguna gacan baanu ka geysanaynaa waana usoo jeesanaynaa dadkana waa ku wacyigelinaynaa annaguna wixii tabartayada ah anigu haddeer wax badan ka sheegi maayo $20 baan ka sheegay isku soo wada duubo MCH-ka hooyada iyo dhallaanka ee degmada Ceelbe ee gobolka Sanaag ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay wuxuu la daalaa-dhacayay carruurta iyo hooyadooda oo markaasi uu ku dhacay xanuunadaasi ay haatanna degmada Ceelbe muddo hore ay u dhinteen ilaa 8 qof oo carruur ah oo markaasi ay ku dhinteen xanuunka halista ee jadeecada iyo weliba gowracatada
tan ayaa ku soo aadaysa iyadoo wakhti dhowaan ahayd la dhagax dhigay cusbatal guud ee yeelan doonto degmadani ceelbi ee gobolkani sanaag waa axmed cabdilaahi ciise axmed cashuur telefishinka caalamiga Somali Cable TV. degmada buuraan ee gobolka Highland ayaa waxaa laga daafuray xafiis cusub oo ay yeelan doonto mu'asasada Minhaaj ee gobolka Sanaag iyo Highland sidoo faahfaahinta warkaasi inoogu soo diray wariyahayaga Maxamed Xasan Dhalo. munaasabadan ay ahayd mid lagu daahfurayay xafiiska cusub ee mu'asasada Minhaaj ay ku yeelan doonto gobolada Sanaag iyo Highland laguna maamuusayo gudoomiyaha cusub oo loo doortay xafiiska ayaa lagu qabtay degmada buuraan ee gobolka Highland. munaasabada ayaa waxa goob joog ahaa maamulka gobolka Highland mas'uuliyiinta ugu sarreeyay mu'asasada Minhaaj iyo fuud ka timid degmooyinka gobolada Sanaag, Highland iyo gobolka Bari. gudoomiyaha mu'asasada Minhaaj ee Puntland Sheekh Maxamed Cabdullaahi ayaa ugu horeyn ka hadlay munaasabada. salaanta galaal waxaan aad ugu faraxsanahay maanta markii labaad howlka buuraan inaan fadhino khaasatan gaar ahaan maxamed cabdullaahi aniga ah haddaan intaa uga gudbo Minhaaj waa gudoomiye waay aad noo dhiibateen idinku waa mu'asasad dacwiya khayri ah oo ay leeyihiin bulshadu waxay u dhisan tahay haddaan information yar ka bixiyo ama bixin kooban golayaal kala duwan golaha guud golaha asaasayaasha golaha boorka golaha fulinta iyo aqsaamta xafiisyada gobolada intaa waxaa ku dhahoobay samajeclayaal iyo culimadii wadanka ugu waaweynaa. gudoomiyaha cusub ee xafiiska labada gobol Sheekh Awil Cali Ciise ayaa sheegay inay si cadaalad ah ugu shaqeyn doonaan ummadda. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. waxaan salaamayaa dadka xafladda ka soo qaybgalay dhammaantood ugu horeeyo beesarkooda Highland taliyaasha ciidanka booliska iyo daraawiishta. waxaan leenahay arrintaas iyo mas-uuliyadda culus ee nala saaray waxaan diyaar u nahay insha allahu tacaala ilaahna ka rabbaynaynaa oo qalayna ilaa nala qabto subxaana wa tacaala annaguna intii karaanka bani aadam baa layska yahay waxba waa khaldami karaanimo laakiin inaanaan waxba aqran oo si hagar la-aana nabadoon xaaji Saciid Cusmaan Waare Caraale ayaa goobta isaguna uga duceeyay mas'uuliyiinta cusub ee loo doortay xafiiska. waxaan kaloo sameeyaa nimanka labada mas'uul oo maxbuud warmay mas'uuliyadda in Ilaahay u fududeeyo. Sheekh Cusmaan Cali Muuse iyo Sheekh Cali Maax oo ka mid ah mas'uuliyiinta iyo mu'assisiinta Minhaaj ayaa waxa ay sheegeen inay aad ugu faraxsan yihiin gudoomiyaha cusub ee mu'assasada Minhaaj ee labada gobol loo doorto Sheekh Awil Cali Ciise. xafiiska insha Allah taala Ilaahay inoo keenay Ilaahay subhanahu wa taala kaanu mahadino. munaasabadan oo maanta gelinkii hore ka dhacday degmada Buuraan ayaa waxa ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool deegaanka iyo culimo ka kala timi gobolada Sanaag, Highland iyo Bari waxaana ay dhamaantood sheegeen inay la shaqeyn doonaan maamulka cusub. Maxamed Xasan, TV-ga Somali Cable, magaalada Buuraan ee gobolka Highland. kulankan oo ay ka soo qayb galeen taageerayaal aad u badan madax ka socotay labada gole ee dawladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa fooda isku daray laba koox oo ku kala ciyaarayay magacyada Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed. xildhibaan Cabdiraxmaan Xaaji Cabdullaahi Ibbi oo muujinaya dareenkiisa. waxaan aaminsanahay in runtii dawladda aysan waxba ka hakranin barnaamijkan meelmarintiisa. waxaan leeyahay intii wax ka qaban kartana inay sii kordhiso saas ay taana Ilaahay subxaanahu wa tacaala aanu xusno adkaarta badino inuu Ilaahay awlaadaanada mataqaana dhanka xun oo dhan ka soo wareejiyo wixii wanaagsan alla waafajiyo. maasantiin aniga xildhibaanaanta gobolka waxaan ka imid Koonfur Galbeed waxaan ka imid laga soo doortay institutionkayga meeshaas u ahaa inaan gool dhaliyo kaga badiyo Hirshabeellada waan ku faraxsan aad aan ku faraxsanahay. intii ay socotay ciyaarta ayaa waxaa taageerayaasha wajiyadooda laga dheehanayay farxad aad u badan taas ay ku faraxsan yihiin inay fooda isku daraan labada kooxood Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle. gudoomiyaha arrimaha bulshada ayaa isaguna dareenkiisa ka muujiyay halkaasi. ciyaarihii sidii loogu talagalay u socdaan waxaan rajaynaynaa inay si habsami leh oo nabadana noogu dhamaan doonaan. waa u jeediin maanta waxaa ka soo qayb galay madaxdii labada maamul goboleed oo taageerayaal u ah labadoodii gobol
shariif xasanna halkaas ay guusha ku raacday waa wax aad loogu farxo in sportsku uu noqdo wixii midayn lahaa madaxda xataa isugu yimaadaan waa horumar aan sugaynay wax ka badanna waa rajaynayna hadduu ilaahay yidhaaho labadan kooxood ayaa ahaa kuwa ciyaar wanaag aad u fara badan garoonka ku soo bandhigay sidoo kale kulanka ayaa waxaa ka soo qayb galay labada madax ee maamul goboleedyada ka kala socday ee Shariif Xasan Sheekh Aadan iyo Maxamed Cabdi Waare halkaasi oo ay guusha ku raacday kooxdii ka socotay maamulka Koonfur Galbeed aad iyo aad aan ugu faraxsanahay gooshan dhaliyay ciyaartooydayda macallimiinteeda ay soo dadaaleen ciyaartadii ay shacabka oo macna ciyaartooyda aan caloosh isku furin gool lama dhalin karo ilaaha gool waa ilaahan ka barnaa habeen maalin aan soo 8 saacada waa u jeeday inaan gooshan dhaliyo insha Allah ilaahan ka barnaa maantan ilaahay niideeda waa ii rumeeyay kan oo food isku dareen labada kooxood oo magacyadooda ku kala ciyaaraya Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed ayaa waxa ay ku soo idlaatay hal iyo waxba taas oo ay guusha ku raacday kooxda Koonfur Galbeed ka socotay Maxamed Cismaan Daahiye Somali Cable TV magaalada Muqdisho odayaal ka tirsan deegaanada bariga Somaliland ayaa waxay hambalyo u direen madaxweynaha cusub ee Somaliland iyagoona ugu baaqayn xukuumadda cusub ee uu soo dhisi doono uu ku soo dhiso hab cadaalada Dr. Farax Ali Shire iyo Ismaaciil Cabdi Jaamac oo kamida bulshada ka soo jeeda deegaanada bariga Somaliland oo qaybo kamida warbaahinta kula hadlayay gudaha magaalada Hargeysa waxay hambalyo iyo bogaadin u direen madaxweynaha cusub ee Somaliland Muuse Biixi Cabdi iyo ku-xigeenkiisa waxaanay ku hambalyeeyeen guusha ay ka soo hooyeen doorashadii Somaliland ka dhacday sanadkani geesta kalena waxay ugu baaqeen madaxweynaha in xukuumadda cusub ee uu soo dhisi doono ay ka muuqdaan ka deegaan ahaan iyagoo kula dardaarmay inuu u soo xulo hab cadaalada waana kuwan iyagoo arrimahaasi ka hadlaya anigoo ah Dr. Farax Ali Shire waxaan salaamayaa madaxweynaha waxaan kaloo salaamayaa madaxweyne ku-xigeenka waxaan ku hambalyeynayaa guushii wanaagsaneed oo lagu faa'iistay oo madaxweynenimada 5 sano ah lagu doortay anigoo ka wakiila waxgaradka iyo odayaasha gobolka Sool anagoo ka wakiila waxaan doonaynaa inaanu boqolkiiba ku hambalyeeyno talabaad waxa weeye waa cusub baa bilaabmay dadkuna waxay u hanweyn yihiin ama taariikhdu u hanweyn tahay in wax isbedel badan oo horumarka iyo ictiraafka iyo wax soo saarka iyo ismaqalka iyo kala dambeynta intaasuba ay inoo hirgasho haddii lahaa idmo annagu haddaanu nahay meelahaas bariga ama gaar ahaan qabiilkaas dhulbahante dawladda inaanu si buuxda uga qayb gelinaanu doonaynaa waxaanu doonaynaa diiwaangelinta waa annagii samaynay wixii foodka ahaaday low abaar xume ay welina hayso waa annagii aan soo dadaalay haddeerna waxaanu doonaynaa inaanu dawladda ka qayb gallo waxaanu doonaynaa inaannu isdhexgal wanaagsan la sameeyo waxaanu doonaynaa in xuduudada bari la soo xidho oo aanu gacan kugu siino adna aad amarka bixisid waxaanu doonaynaa in hawl kasta oo la qabanayo aanu ka qayb qaadanno laakiin madaxweyne waxaanu kuu sheegaynaa adigoo raalli naga ah annagu wax kalma aanu soo doonan jirin sanadkuun baa noogu horraysa siifiyadii baanu diyaar garaynay halkan rag badan baanu ku wada nimi anugu daawalba hore waan u sheegay waa adigii ogaa laakiin dadkii siifiyadii meelay geeyaan bay garan waayeen meel ay geeyaan ku hagaagaan bay garan waayeen wakhtiguna waa iska gebageba waa dhow yahay waxaanu doonaynaa madaxweyne master muuse inaannu aanu ogaanno bal meesha araajida la geeyo marka wasiirada iyo la dooranayo dee wixii la mid a saasaanu dhulbaanta haddaanu nahay aan oday kaga ahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu anigoo ah Ismaaciil Cabdi Jaamac oo matalaya dhallinyarada afka gobollada bariga sida Sanaag Koonfureed Sool iyo Cayn waxaan u hambalyeynaa madaxweynaha cusub Muuse Cabdi Xildiid madaxweyne aad iyo aad ayaan kugu hambalyeynaa waxaanu ka filanaa wax wanaagsan iyo rajo cusub baanu ka filanaa oo dhalinyarada mustaqbalka aad u furto gobollada ka soo jeeda oo intii hore saaxadda siyaasadda ama shaqada ka maqnaa adiguna sidaad sheegtayba gobollada dee aan awal ku jirin maamulka Somaliland ka wax yar tabanayay inaad si gaar ah u eegto marka hore aad iyo aad baanu kugu hambalyeynaa Muuse daanu nahay dhalinyarada iyo odayaasha iyo cid kastaba marka labaad waxaan leenahay nimanka annaga naga tirsanay joogay xukuumadda markii hore u shaqeynayay hadda intii aan adigu soo dooran madaxweynayaasha ka horeeyay joogay nimankaas uma baahnayn in mar dambe la soo celiyo way faylgaroobeen nimanka waxa weeye niman dee iyagu shaqaysanayay bay ahayn laakiin niman cid matalay ma ahayn
marka madaxweyne waxaan ku leeyahay allah ha ku fududeeyo xilka cadaaladana eeg oo dadka si cadaalad ugu shaqeeyo haddaanu gobolada nahayna wax wixii hore ka bedelan madaxweynaha cusub ee dhowaantan loo doortay Somaliland Muuse Biixi Cabdi caqabado noocee ah ayaa ka hor iman kara oo uu waajihi kara warbixin arrintaasi ku aadan waxa magaalada Hargeysa inoogu diyaariyay wariyahayaga Faysal Maxamed Aadan Fifa muddo ku siman 26 sanadood oo Somaliland ay dal iska dutaagan isla markaana ka madax banaan Soomaaliya inteeda kale walow ictiraaf waxa aanay weli ka helin beesha caalamka waxay si weyn u qaaday talaabooyin inta badan ay ku majeertaan wadamada dunida iyo sidoo kale dalalka dariska la Somaliland gaar ahaan dhinacyada dhaqaalaha siyaasadda arrimaha bulshada iyo sidoo kale amniga iyo xasiloonida Somaliland ka taabagashay muddo dheer waxaana markii shanaad shacbigu isku diyaarinayaan hogaaminta madaxweynihii shanaad ee Somaliland soo mara oo 5 sano ee foodan ugu soo haya hogaamin doona maxaa caqabada ee wajihi kara madaxweynaha cusub ee shacbigu doorteen aqoonyahan Jamaal Jaamac Ismaaciil oo si weyn uga faalooda dhinacyada siyaasadda iyo sidoo kale dhaqaalaha ayaa sharaxaad ka bixinaya caqabadaha soo wajihi kara madaxweynaha iyo xukuumadda cusub horta xukuumadda cusub marka hore Ilaahay waxaan ugu baryaynaa Ilaahay uu fududeeyo caqabado badan baa runtii ka hor iman kara caqabaduhu waxay u badan yihiin waxa laga filayo oo laga filayo de horumar iyo xukunkii maxalliga xukuumadii hore ka wax qabad badan oo ka balaaran xukuumadda hore wax ka dhaxlayna oo ka dhaxlaya maamulkana waa xukuumad runteedu iyo talaabooyin badan qaaday marka horta rajada weyn in Ilaahay uu fududeeyo culayshada ku iman kara waxa kamid ah dad badan baa soo shaqeeyo kulmiye magaciisa ku soo shaqeeyo golaha wasiirada ku soo shaqeeyay mid kamid kale waxay noqon doontaa wasiiradii hore xukuumadii hadii jaraale hadii matalan oo wadani heli lahaa doorashada kale de way iska yarfudaan lahayd xisbi ka helay bahayd imika xisbi xukuumiye ayuunba mar laba taladii ku noqday boosaskii dawladda ama agaasimayaal ha noqoto amba wasiir ha noqoto amba shaqooyinka kala duwan ee dawladdu ay lahaydna kulmiyoonba ku fadhiya kulmiyahaasna oo kulmiye soo shaqeeyo iyagu ololaha ka qayb qaatay sidee buu madaxweynaha cusubi qoladii horena u tixgelin karaa qolada cusubna uu u tixgelin karaa iyaguna soo shaqeeyay taas horta culayska ugu badana culays labaad oo kale isaguna jiro oo sidee buu ula shaqeyn doona ama u qadarin doona xisbiyada iyagu xisbiye qarana doorashada uu ka helay una baahan maanta deen wajh cusub lagu shaqeeyo meelahaas aan malay aniguna culayska u badan ka jiro uu soo dhisayo maxaa uu ka dhaxli karaa xukuumaddii hore isaga ka horeysay ee ka dhalatay isla xisbiga talada hayo kulmiye ee mar kale ku guuleystay hogaamin dhinaca positive hadeen horeysiino wuxuu ka dhaxli karaa runtii de xukuumaddu xaqabad oo wax badan ku talaabsatay مثلا ودooyinka dib loo hagaajiyay wadada ceergaabo la bilaabay wasaaradaha guriga loo dhisay wax qabad runtii badan oo la taaban karo ayuu ka dhaxli karaa isla markaana wuxuu ka dhaxli karaa culaysyo badan oo sanadihii dambe sida suuqyadana ku caanka sanadihii dambe xukuumaddu xogaa xagal dacba ku yimi waxa jiray maxaa la yiraahdaa eedeymo badan oo wasiirada qaar lagu eedeynayay inay musuqmaasuq badan ka qayb qaateen in maxaa la hanti badan oo ummaddu lahayd la xaraashay hantida ummaddu lahayd la xaraashay la iibiyay ma toos bay ugu dhacday khasnada dawladda mise meel kale ka wareegtay runtii caqabado noocaasi way jiraan oo ay ugu weyn tahay midtan waxa dhacay iibab aad u fara badan dekada berbera dhacday haamihii shidaalka dhacay la iibiyay dhulka shacabka isaguna aad loo iibiyay baa jiray waxa iyadu qudhada isu miisaamid baahan xukuumadii imika Axmed Siilaan iyo garwadeenka ka ahaa waxay qabatay iyo dakhliga hantida iibisay iyo muddadii ku fadhiday in inahaas muddadii xilka haysay midtan 7 sano Axmed Maxamed Siilaan xilka hayay 7 sano muddo yar ma aha waa muddo dheer muddada dheer iyo wixii uu qabsoomay iyo hantida la iibiyay wixii ka soo baxay waxyaabahaas kulli culays leh oo dadkuna inta badan ay farta doorashooyinka dawladda la sameyn kara doorashooyin bala lacag in la galo aan kharash bal isticmaalin badan shidaal iyo waxaan ahayn marka kulli arrimo qaran oo inoo yaala way jiraan inay wada xalino ay kamid tahay arrinta Soomaaliya oo kale ay laga yeelay ictiraafka Soomaaliland oo kale laga yeelay arrimahaas waa arrimo inaga wada dhaxayeen wada leen muddo kordhinaha oo kale oo waxaanu nahay ummad baynu nahay intay qoratay sharci baynu qoraneen leenahay madaxweynayaasha waxaanu dooranaa 5 sanadood ilaa haddana ma hirgelin waxaan rajaynayaa Muuse Biixi inuu taariikhda ku galo ninkii soo afjiray wax la kordhisidka madaxweynayaasha soo wada kordhisan xataa Axmed Maxamed Siilaan markuu mucaaradka aad uga qayliyay oran jiray daahir yaalayaan loo kordhinin haddana kordhin buu ku dambeeyay qofna waxbu taariikhda ku gala anu waxaan madaxweyne cusub soo jeedin lahaa inuu taariikhda ku galo inuu yahay halku matalan Maxamed Xaaji Ibrahim Cigaal oo kale uu yahay lagu amaano yahay maamulka inuu dejiyay Soomaaliland oo ayday daahir yaala lagu isaguna taariikhda ku galin dimuqraadiyadda fidiyo doorashooyin badan qabtay Axmed Maxamed Siilaan lagu isagana lagu majeeran karo inuu wax qabad badan soo kordhiyay isaguna taariikhda waxaan marnay wax qabad yaha ku galo iyo inaanu kordhisanin David Maraga madaxa cadaaladda ee dalka Kenya ayaa difaacay madax banaanida ay leeyihiin garsoorayaasha cadaaladda ee dalka Kenya sidii faahfaahinta warkaasi magaalada Nairobi inooga soo dirtay wariyahayaga
isir maxamed madaxa cadaaladda ee Kenya ayaa sheegay in qaar ka mid ah garsoorayaasha dalka ay la kulmaan hanjabaado kala duwan. Master Maraga ayaa hadalkani ka jeediyay xilli uu ku sugnaa magaalada Nakuru. Sidoo kale dadka Kenyaanka ayuu ku baaqay madaxa cadaaladda ee dalka inay taageero buuxda siiyaan garsoorayaasha si loo ilaaliyo xuquuqda iyo madax bannaanida garsoorayaasha. maxkamadaha kala duwan ee dalka Kenya meelna looga soo wada jeesto cid kasta oo ka soo horjeeda madax bannaanida garsoorayaasha dalka. hadalka madaxa cadaaladda dalka Kenya waxa uu ku soo aadayaa xilli dhawaan madaxweynaha Kenya loo dhaariyay Uhuru Kenyatta sidoo kale mucaaradka ay wadaan dadaalo ku aadan inay madaxweynaha Kenya u dhaariyaan hogaamiyaha mucaaradka Raila Odinga. Isir Maxamed, Somali Cable, Nairobi. Israel ayaa duqeysay goobo ay sheegtay inay ku sugnaayeen kooxo ka tirsan ururka Hamas ee ka dagaalama marinka Gaza. sida faahfaahinta warkaasi magaalada Nairobi inooga soo dirtay wariyahayaga deeqa Cabdirasaaq Yuusuf. militariga Israa'iil ayaa duqeeyay maanta goob ay sheegeen in lagu sameeyo hubka laguna kaydiyo rasaasta oo fadhiisano ah ururka Hamas. gantaalo laga soo riday dhanka Gaza ayaa waxa uu ku dhacay mid ka mid ah magaalo ku taalo koonfurta Israa'iil. go'aankii uu qaatay madaxweynaha Mareykanka ee ahaa in Qudus tahay caasimadda Israa'iil ayuu kaga baxay khilaafkii 70 sano u dhaxeeyay Israa'iil iyo Falastiin. Israa'iil ayaa weligeed u arkaysay in Qudus tahay caasimadooda halka Falastiin ay u aqoonsan tahay inay tahay caasimadda dawladda mustaqbalka dhow ay yeelan doonto. Israa'iilna ay qabsatay magaaladan sanadku markuu ahaa 1967. Nikki Haley ayaa sheegtay in Mareykanku sii wadayo ka go'naanshaha in xal loo helo khilaafka u dhaxeeya Israa'iil iyo Falastiin. dhanka kale waxay qaramada midoobay ku eedeysay inaysan ahayn dhexdhexaad iyadoo raacisay inay tahay xarunta lagu hogaamiyo saaxiib la'aanta Israa'iil ka dhan ah. banaanbaxyo waaweyn ayaa ka socda wadamada muslimiinta kuwaasi oo looga soo horjeedo hadalkii Donald Trump ee ahaa in Qudus laga dhigayo caasimadda Yuhuudda. waxaana ka soo horjeestay madaxda muslimiinta iyo qaar ka mid ah madaxda wadamada Yurub. deeqa Cabdirasaaq Yuusuf, Somali Cable TV, Nairobi. guud ahaan qodob wareedkaasi waxa uu guniya guraanad u ahaa warar waxaanu idinka haynay daafaha caalamka iyo dhulalka Soomaalida. warkuna waxa uu idinka imanayay stuudiyaha uu telefishanku ku leeyahay magaalada Hargeysa. waxaan idin la socodsiinayay anigoo ah Idris Cabdillah Ismaaciil Beershiya. tan iyo intaan ku kulmayno warkan warka xiga anigii akhyaartayga la qayb qaadatay tabinta isku dubaridka iyo diyaarintuba dhamaantay waxaanu idinkaga tagaynaa السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. توصن يا توبة الله.